halkan oo ah hotel haase magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaa caawa si rasmi ah loogu soo gabagabeeyay tartan aqooneed in muddo uga soconayay iskuulada gobolka Togdheer. Haayada wadaniga ee SAYDAVO oo kaashanaysa wasarada waxbarshada iyo sayniska gobolka Togdheer ayaa 16 iskuul oo ka mid ah dugsiyada sare ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer u qabatay tartan aqooneed kuwaasoo iskuuladaasi isugu jiray iskuulada dawliga iyo sidoo kale kuwa gaarka loo leeyahay. Tartankan oo in muddo ka socday hotel haase magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa waxaa isugu soo baxay semi-finalkii dugsiga sare ee Togdheer Secondary School ee magaalada Burco iyo dugsiga sare ee Sheekh Ibrahim iyo Geeska Afrika. ugu dambeyntiina waxaa tartankan kaalinta koobaad ka galay dugsiga sare ee Togdheer Secondary School halka kaalinta labaadna uu ka galay dugsiga Geeska African Secondary School ee magaalada Burco halka kaalinta saddexaadna uu ku dhacay dugsiga sare ee Sheekh Ibrahim. Tartankani markii uu soo dhamaaday ayaa hay'adda wadaniga ee SAYDAVO waxay munaasabad siyaasadeed loo soo agaasimay u qabatay dugsiyadii kaalmaha hore ka galay tartankaasi waxaana munaasabadan goobjoog ahaa gudoomiyaha waxbarashada gobolka Togdheer maamulka gobolka Togdheer iyo ka degmada macallimiin maamulayaasha dugsiyada gudoomiyaasha jaamacadaha arday iyo marti sharaf aad u tiro badan. ugu horeyntiinba waxa hadalka qaatay gudoomiyaha waxbarashada gobolka Togdheer Maxamuud Caynaashe. guud ee dugsiyada tartamay waxay ahaayeen 16 dugsi qorshaha aan u dejinayna wuxuu ahaa 3 kooxood oo koox waliba uu ka soo baxo hal dugsi group 1 group 2 iyo group 3 koox walba waxa ka soo baxay markaa hal dugsi saddexdii dugsi ee ka soo baxay group walba ayaanu haddana waxaanu ku tarsansiinay inay kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad galaan. runtiina si qiimo leh ayuu soo gabagaboobay. kaalinta saddexaad aan ugu horeysiiyo waxa galay dugsiga sare ee Sheekh Ibrahim kaalinta labaad waxa galay dugsiga sare ee Geeska Afrika oo runtii isaguna dadaal badan oo muujiyay ku guuleystay inaan caawa halkan kaga dhawaaqno. kaalinta koowaad waxa galay dugsiga sare ee Togdheer. dugsiyada sare ee aan maanta kaalmaha hore gelin inay soo dadaalaan qolada maanta kaalmaha hore gashayna inay ku mintidaan sidii aan looga soo dhicin lahayn. dhanka kale waxa hadalka qaatay Cabdi Sahal oo ah madax waxbarashada hay'adda wadaniga ee SAYDAVO barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Nafaqo xildhibaan Khadar oo ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Burco maamulayaasha dugsiyada ka soo qayb galay tartankani gudoomiyaasha jaamacadaha ganacsatada gobolka Togdheer iyo sidoo kale bahda garsoorka iyagu tartankan qabtay. waxaan hambalyeeynaya ardaydii guuleysatay ee gashay kaalinta koowaad kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad. waxaan ogahay in iskuuladaas ku kala badiyeen oo nasiib. waxaan halkan ka ballan qaadayaa anigoo metelaya hay'adda wadaniga ee SAYDAVO inaanu intan iyo in ka badanba aanu gudoomiyaha la sii wadi doono. hay'adda wadaniga ee SAYDAVO oo runtii iyaduna ku dhiiratay inay dhiirigelinta qaadida aqoonyahanka ama ardayda dugsiyada sare ee tartankooda inay maalgeliso gudoomiyaha waxbarashada iyo tiimkiisa oo runtii nin dhalinyaro ah oo aad u firfircoon ah intii uu joogayna isbedel sameeyey. Maxamuud Caynaashe isbedelka uu sameeyey Ilaahay ku barakeey. dhammaan madaxda gobolka iyo ardayda iyo dadkii soo aabulay way ku mahadsan yihiin hawsha ay soo qabteen waana ku dhiirin galinaynaa. waxaana leeyahay qolada jaamacadaha jawaarina kuwa lacag bay noo soo xarootee de mar iyo at least bal hadda intaynu isu tagno mar inakuna aynu nidhaahno annaka qaabilnay on behalf of the University of Burco aan ku qaadno. runtii barnaamijkan tartan aqooneedka ama af Soomaaliga lagu yiraahdo kediska waa barnaamij kobciya garaadka da'yarta garaadka ardayda iyo garaadka waxa weeye bulshada intaba. haddii aanu nahay oo aan ku hadlayo afka ganacsatada guud ahaan waxaan insha Allah taala soo dhaweynaynaa waxaanu taageeraynaa dhammaan barnaamijkan insha Allah taala tartanada dambe insha Allah qayb baanu ka noqon doonaa. waxa halkan ka dhacay tartan aad iyo aad u qiimo badan. waxaan bogaadinayaa oo kale maamulkooda iyo macallimiintooda heerka gaarsiiyay ayaan aad iyo aad u bogaadinayaa. taasina waxay ka tarjumaysaa midhaha ardayda dugsiyadeena joogta in la keenay dad aad u qiimo badan. waxaan uga mahadcelinayaa gudoomiyaha waxbarashada hay'adda wadaniga ee SAYDAVO. xaqiiqatan sidaa la sheegay waxa weeye arday dhisan aqoon ahaan iyo akhlaaq ahaanba ayaa yimid. dhammaan wasaaradda waxbarashada waxaan kaloo si gaar ah ugu mahadcelinayaa dhammaan dawladii tartanka ka qayb qaatay hay'adda maalgelisay barnaamijkan maalgelisay guddigii dhammaantiin waxaan leeyahay hambaliyo anigoo ka hadlay afkii golaha deegaanka waxaanu ballan qaadaynaa inaynu isdhexad haagi doono bahda waxbarashada
oo shaqo wacan qaba haysa. ugu dambeyntiina waxaa shahaadooyin iyo jaaysado la guddoonsiiyey dugsiyadii kaalmaha hore ka galay tartankani. maxamed yuusuf cabdilaahi maxamed wardi, telefishinka caalamiga ee Somali Cable TV, Burco.